waxyaalaha maartay dib ii celin jiray waxa waaye waxaan ka cabsan jiray what if haddaan khalad sameeyo. I think muuqaal aan soo dhigay 3 bilood ama 4 bilood ka hor aan ka hadlayay maxay xishoodka waxaan rabaa inaan dhammaystiro oo maxay ka hadalada inuu sabab maartay ugu gudbay xishoodkaas and how I overcome basically xishoodka. So I remember wallahi class on our video su'aal weydiinay oo kaalada black out hal eri afkay kuma soo bixi jirin waxa laga yaabaa hal ilaa naga timaado taas waayo wallahi xataa wadnaha iga riri jiray naxtin iyo naas garab ugu dhici jiray because I was so shy marka sometimes even xataa galaaska ka carari jiray I used to go to toilet excuses bas min jiray but then I realized maxay ahayd waa in jid xul marka heshid and of course xataa I used to be crying because wax aan aqaano aan ogahay and then at the same time I'm just ka xishoonayo aan la yaabo because why I knew in I'm capable and aqaani maadaas and I knew the language immediately it was just the xishood but then I was like how soon kuma sii socon kartay you need to do something right marka waxa sameeyay go'aan baa qaatay of course ma had one night hal mar iskuma bedelin but slowly when tartiib one isku dayana ku hadlo waxa arkay anoo luuqadii kala love ku noqday marka la sheekaystay ana ka cabsan inaan khalad sameeyo waxyaalaha maartay dib ii celin jiray waxa waaye waxaan ka cabsan jiray what if haddaan khalad sameeyo waayo maartay luuqadan ma aha my first language and marka waxaan ka cabsan jiray arma maxay ahayd ereyga khalad u dhahdaa lagu qoslaa arma saantahay laakiin marka soo weynaada waxaan fahmay in order for you to ina wax baratid ama wax ku wacnaatid ina mistake samaysid waa normal you have to accept it marka waxaan accept gareeyay inay khaladiin dhici karaan ana ka baran karo haddana hore ugu socon karo and I learn from it so that is the way aan xishoodka maartay and obviously maartay ugu gudbay and another thing is waxa arkab anoo language very confident ku wallahi maartay haddana maxay ahayd khalad sameyn lahayn ma baran lahayn ba ereyga si sax loo dhaho so I learned that way and then the other thing is waxa bas arkay luuqadii anoo maartay aan ka doortay luuqadooyinka kala teedo maartay maanta aan ku sheekeynaa even now I love this language aan ku hadlo another thing is waxaan soo xasuustaa waxaan mention garay inaan introvert still introvert waan ahay laakiin depends on dadka la sheekeysanayo and introvert iyo xishoodkaygu isku xirnaayo waxa bariga orteed waayo maartay man jeclaan meelaha badan ka hadlo adana sida kale teena luuqada maxay ahayd anoo aqaani dhibis xaayar oo waxaan ka cabsanayo but the most important thing I want to muuqaal ka qaatay waxa waaye it's okay in a mistake samaysid it's okay in maxay ahayd and ereyga si khalad u dhahayd waayo saas ba u baranaysaa wada marka dambe you will get it waana baranaysaa and you will know the correct way to say it basically